waalid ma ku nooshahay Maraykan? haddaad ku nooshahay waxaan hubaa aflagaadada iyo dhaqan xumada iyo jaa'ifada madaxweyne Trump uu u geystay mujtamaca Soomaaliga ah isagoo ugu yeeray qashin garbage, isagoo yiri waxay ka yimaadeen shit hole wadamo ah, isagoo ku daray wadamada uu baangareeyay, isagoo habeen iyo maalin bacay. arrintaasi saameyn bay ku yeelanaysaa awlaadeena, waxaana noqon kartaa qayb bullyingka ka mid ah. bullyingka markaanu ka hadlaynay waxaan sheegnay in uu noqon karo mid shakhsi kaaga yimaada, mid koox kaaga yimaada, iyo mid nidaam system ku dulminaya kaaga yimaada. marka wuxuu noqon karaa runtii nooc ka mid ah bullyingka. waxaan rabnaa carruurteena marka inaan la sheekaysano oon weydiino saameynta arrintaasu ay ku yeelatay. kadib waxaan rabnaa 3 shay inaan u sheegno. waxaan hubaa inay arrintaasu saameynayso, inay shakhsiyadooda saameyn karto, in mar walba oy arkaan aflagaadada ku socota mujtamacay asal ahaan ka soo jeedan inay dhibayso. waayo hadalladan baraha bulshada dhan bay ku jiraan. carruurteenu TikTok ay ka dhex arkaysaa, Instagram ay ka dhex arkayaan, Facebook iyo Twitter bay ka dhex arkayaan, Snapchat bay ka dhex arkayaan, meelaha commentiyada dhan bay arkayaan, idaacadahay arkayaan. waayo waa carruur Maraykan ku dhashay, luqaddu madaxweynuhu ku hadleen waa luqadoodii, waa luqadii Ingiriiska weye. maxaa inaga inala gudboon ka waalid ahaan? sideen carruurteena uga daweyn karaa arrinkaas? waxaan rabaa inaan soo jeediyo 3 qodob oon isleeyahay carruurta runtii waxay u noqon kartaa daweyn ama moralkooda inaan kor u qaadno. qodobka koowaad, mar walba waan ka hadli jiray, haddana waan ku celin, waa inaan saxno identityga carruurteena. ilmaheena ku dhashay Maraykanka ay ku koriyeen meel kale arkin. anigu shakhsiyan ma qabo in lagu yidhaahdo hooyo aabe waxaa tahay Soomaali. waayo inay Soomaali yihiin shaki kuma jiro. meeshaan u socdo waa in kaarka waddankan inay ku dhasheen ay xoqan karaan, oy ogaadaan waddankan inaan laga xigin. sidaa darteed waxaan leenahay marka hooyo aabe uu qofkugu yidhaahdo where you from, xageed ka timid, yaani odhanin I'm from Somalia. hadalkaasu sax maha. waa inay dhahaan I was born here, xagganaan ku dhashay. I am from here, xagganaan ku dhashay. meesha ha taagnaadaan. waa kaanay isticmaali karaan. waddankanay ku dhasheen dhalashadiisa waa inay isticmaalaan. waxay dhaxal siinaysaa in ay ku hamiyi karaan inay systemka galaan, in la dooran karo, inuu sharcigu ogolyahay madaxweyne inay ka noqon karaan, in aan la buligarayn karin. qof walba waxay ku dhahayaan saad ugu dhalatay ayaan ana meeshan ugu dhashay. ayib haddii qofku ku yidhahdo okay where are your parents from, waalidka xagee ka yimaadeen, ha ku dhahaan America has always been the land of immigrants. Maraykanka mar walba waa meel dadku ay iman jireen oo soo geli jireen. sidaa darteed waxaan rabaa carruurteenu inay dhahaan Obama waalidiintii siday uga yimaadeen Africa uu isagu meeshan ugu dhashay uu madaxweyne uga noqday ayaan ana uga noqon karaa. Trump sida ehelkii ay uga yimaadeen waalidiintii East Germany uu meeshan ugu dhashay madaxweyne uga noqday ayaan ana uga noqon karaa. carruurteenu ha ogaadaan kaarka inay isticmaalaan. waa fursad. waxaan u baahnahay marka inaan isu sheegno home, gurigaagu ma aha meesha awooye ayay ku dhasheen. home is where your kids were born and growing up. gurigu waa meesha carruurtaadu ku dhasheen ay ku korayaan. taa waa qodobka koowaad in carruurteena u sheegano. qodobka labaad, aan u sheegno Trump hadalkiisu inaanu matalin, uusan ka turjumayn mowqifka shucuub weynaha waddanka Maraykanka. shacabka Maraykanka waa dad fiican runtii intooda badan. waa dadaan muddo 20 sano ka badan isla kornay, wax isla baranay, isla shaqaynay, darisnahay. idaacadaha wareeriya, laakiin waa shuntii shacab maskax furan weeye. sidaa darteed carruurteena waxaan u sheegaynaa inay kala saaraan mowqifka uu Trump goonida la yahay iyo midda shacabka weyn ee Maraykanka. ninka waa nin waalin mana turjumo. qodobka saddexaad, in iyagu ay yihiin dadkii laga rabay inay xaggan wax bartaan oo looyaro noqdaan oo dhakhaatiir noqdaan oo fikirkan khaladka ay la dagaalamaan, inay noqdaan human rights lawyer. in carruurteena aan u korinoon u diyaarino iyagoo muslimiina inay noqdaan dad aflagaadooyinka caynkaasa aan ogolayn in Soomaali loo geysto, in loo geysto cid kale, cid kasta oo la dulminaya ay dulmigooda ka hadlaan oo iyagu ay noqdaan kuwii sixi lahaa. arrintaasi waxay siinaysaa kalsooni, lahaansho, ahaansho wax la yidhaha a sense of belonging. laakiin sida inaga inala hadha ee ah in jidhkeenu xaggan jooga, qalbigeenuna waddankii joogo, oo qof walbo lacag helo uu rabo inuu waddankii wax ka dhisto, waddankiinu wax ka samaysto, arrintaasi waa khalad.
waa sababta keentay muddo inay nagu qaadato systemka inaan gallo wax dooran karno. saddexdaa qodob ayaa waxaan isleeyahay carruurteenna runtii waxay u noqon karaan kaadh ay u isticmaalaan inay ka hortagaan dhaqanka iyo dareenka cunsurinimo ee maanta kor u kacaya. ha yidhaahdaan carruurteennu I was born here, I am from here, meeshaa ha joogto. allah awlaadina badbaadiye nagaba. wasalaamu calaykum waraxmatullah.